Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaasha qiimaha badan maalin wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkani ciyaaraha waxaynu soo qaadan doonaa kulamada xalay laga ciyaaray koobka adduunka iyo kuwa caawa laga ciyaari doona wararka suuqa kala iibsiga iyo wax walba oo ku saabsan guud ahaan kubadda cagta haddii tahay markay kugu horreysay subscribe noo sar haddaad hor noo joogto like iyo share noo waa mahadsan tahay xalay waxaa la ciyaaray kulamada ka tirsan koobka adduunka waxaana ciyaaray kulanka ugu horeeya wuxuu soo gelayay afarta habeenimo xiliga geeska Afrika waxaana ciyaaray xululka Senegal iyo sidoo kale xulka qaranka lagu magacaabo Faransiiska 3 gool iyo hal ayuu ku badiyay 2 gool kamid ah goolashaasna waxaa dhaliyay ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe oo hadda rikoor cusub sameeyay sidoo kale goolka kalena waxaa dhaliyay ninka lagu magacaabo Bradley Barcola oo ciyaarta bedel ku soo galay Mbappe markuu uu dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay ciyaarta daqiiqadii 66aad wuxuu la sameeyay rikoorka ninka ugu gool dhalinta badan ee xulka qaranka Faransiiska lagu magacaabo Olivier Giroud kaasoo sameeyay 57 gool guud ahaan xulka Faransiiska Mbappe ciyaarta ka hor wuxuu haystay 56 gool wuxuuna u baahnaa kaliya hal gool inuu jabiyo ama inuu la sameeyo rikoorka ninka lagu magacaabo Olivier Giroud oo sameeyay 57 gool Mbappe daqiiqadiisii 66aadna rikoorka ayuu la sameeyay balse goolkiisa labaad daqiiqadaha dheeraadka Mbappe wuxuu sameeyay inuu noqdo ninka ugu gool dhalinta badan guud ahaan Faransiiska oo ay u soo ciyaareen ciyaartoy badan ayuu ninkan ka noqday oo ah nin dhalinyaro oo 26 jir ah inuu noqdo ninka ugu gool dhalinta badan guud ahaan Faransiiska isagoo jabiyay ninka taariikhda ugu gool dhalinta badan ahaa jiray Olivier Giroud oo ah nin had ka fadhiistay kubadda cagta dhanka ay sidoo kale qaranka welina wuxuu ciyaaraa kooxda kubadda cagta Lille ee ka ciyaarta isla horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 Mbappe xalay rikooradaas ayuu sameeyay sidoo kale Mbappe wuxuu dhaliyay 14 gool guud ahaan koobka adduunka laga soo bilaabo 2018 ilaa iyo tartankan hadda socda ilaa 2026 saddex jeer uu ka qayb galay koobka adduunka Mbappe wuxuu dhaliyay 14 gool sidoo kale Mbappe wuxuu dhaafay halyeeyga lagu magacaabo Justin Fontaine oo 13 gool u dhaliyay koobka adduunka xulka Faransiiska balse ninka lagu magacaabo Fontaine wuxuu hal koob adduun kaliya dhaliyay 13 gool taasoo aan taariikhda wali la sameyn waxayna ahayd 1958 koobkii adduunka la qabanayay Justin Fontaine wuxuu dhaliyay 13 gool marka Mbappe ma jabin karo rikoorkan Justin Fontaine sababtoo ah Mbappe 3 koob adduun uu ka qayb galay iyo 14 gool dhaliyay ninka lagu magacaabo Justin Fontaine hal koob adduun uu ka qayb galay ama hal koob adduun oo wuxuu ku sameeyay inuu dhaliyo 13 gool sidaas darteedna Mbappe marka tira ahaan marka loo fiiriyo waa dhaafay laakiin rikoorka ahaan ma dhaafin sababtoo ah Mbappe waxa loo baahan yahay inuu rikoorkan dhaafo 12 gool sababtoo ah ninkan wuxuu sameeyay 13 gool hal koob adduun kaliya marka Mbappe hadda wuxuu haystaa Soomaan 2 gool xalay 2 gool ayuu dhaliyay marka 12 gool inta koob adduun ka dhimay inuu dhaliyo ayaa loo baahan yahay marka taariikhda gool dhaliyaasha u badan koobka adduunka waxa kaalinta kuwaad iskula jira ninka lagu magacaabo Carlos Klose oo leh 16 gool halka xalayna rikoorkaas uu la sameeyay ninka lagu magacaabo Lionel Messi oo isagana 16 gool ciyaarta ka hor Messi wuxuu haystay 13 gool marka ciyaarta kadibna Messi wuxuu dhaliyay hat-trick ayuu dhaliyay sidaas darteedna marka waxay noqotay in rikoorka ay yihiin kuwa isla siman oo 16 leh oo ku kala jira kaalinta kuwaad waxaana kaalinta labaad ku jira ninka lagu magacaabo Ronaldo Nazario oo leh isagana 15 gool waxaana saddexaad iyo afaraad soo galaya Gerard Muller iyo sidoo kale Kylian Mbappe oo iyagana leh min 14 gool ah Mbappe hal gool kaliya ayuu jiraa inuu la sameeyo Ronaldo Nazario oo 15 gool leh kuna jiro kaalinta labaad kaalinta kuwaad waxa isku jira Messi iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Klose oo min 16 leh marka dhanka kalena waxa ciyaaray xalay Norway iyo sidoo kale xulka qaranka lagu magacaabo Iraq ayaa ciyaaray way raacisteen maadaama 4 gool iyo gool ay ku badiyeen goolashaasna waxay kala imaadeen Erling Haaland oo daqiiqadii 29aad hal ewer uu dhigay xulka qaranka lagu magacaabo Norway 39aad Iraq waxa goolka u bareejiyay ninka lagu magacaabo Ebel Hussein balse 43 daqiiqo inta aan kambiga la marin Erling Haaland ayaa dhaliyay goolkiisa labaad kambiga kuwaadna waxay ku dhamaatay 2-1 daqiiqadii 76aadna Leo Ostigard ayaa dhaliyay 3 gool ayuu ka dhigay ciyaarta Norway inuu goolku dhaliyay
balse daqiiqadii 96aad ninka lagu magacaabo Ayman Hussein ayaana gool iska dhaliyay sidaas darteedna xulka qaranka lagu magacaabo Norway waxay ku badiyeen 4 gool iyo gool iyagoo noqday hogaamiyaasha groupka ay Faransiiska iyo Senegal Norway iyo Ciraaq ay ku kala jiraan marka waxaa hogaaminaya Norway oo leh 3 dhibcood iyo 3 gool nadiif ah Faransiiska labaad ayuu ku jiraa 3 dhibcood ayuu leeyahay 2 gool nadiif ayuu leeyahay Senegal kaalinta saddexaad ay ku jirtaa eber dhibcood ay leedahay 2 gool ayaa lagu leeyahay Ciraaqna kaalinta ugu dambaysa afraad ay ku jirtaa eber dhibcood ay leedahay 3 goolna waa lagu leeyahay xalay way wacdareeyeen xulka qaranka lagu magacaabo Norway waxaana ninka uu fiicnaa ciyaarta waxaa noqday Erling Haaland oo runtii 2 gool wata sidoo kale xalay waxaa la ciyaaray ama waa barigan ama salaada subax agteeda waxaa ciyaaray xulka qaranka lagu magacaabo Argentina iyo sidoo kale xulka qaranka lagu magacaabo Algeria nimanka koobka sanadka difaacanaya oo rabana inay noqdaan wadankii saddexaad ee sameeya 2 koob adduun oo xiriir ah inay ku guuleystaan waana nimanka lagu magacaabo Argentina oo runtii xalay wacdareeyay ninkii odayga ahaa Messi wuxuu dhaliyay hat-trick ayuu dhaliyay wuxuu la sameeyay rikoorka ninkii dhaliyay 16 gool koobka adduunka isagoo hadda kaalinta kuwaad iskula jiraan ninka lagu magacaabo Merlo Colos iyo sidoo kale Lionel Messi ciyaarta ka hor Messi wuxuu lahaa 13 gool balse hat-trickii uu dhaliyay xulkiisa ayaana u noqday Messi inuu sameeyo 16 gool Messi xalna wuxuu ahayd kulankiisii 200aad ee uu saftay guud ahaan xulka lagu magacaabo Argentina sidoo kale Messi waa ninkii uu horeeyay ee saftay Argentina u ciyaara 6 koob adduun uu saftay Argentina ayuu noqday xalayna ayuuna furay koobkiisii 6aad ee uu ka qayb galayo koobka adduunka tan iyo 2006 uu ka soo bilaabay ilaa ay hadda lagu joogo 6 koob adduun ayuu si xiriir ah ugu qayb galaya ninkan lagu magacaabo Lionel Messi xawana waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan koobka adduunka ciyaarta ugu horeysa waxay soo galaysaa 8 fiidnimo waxaana ciyaaraya odayga kale ee lagu magacaabo Cristiano Ronaldo iyo sidoo kale Portugal iyo waxa isku baxaya nimanka lagu magacaabo Congo Portugalna waxay rabaan inay tartankan meel fiican ay ka gaaraan waana xulo kale oo saameynaya in sanadkan ay ku guuleysan karaan maadaama sanadkan uu noqon karo sanadkii ugu dambeysay uu ciyaaro halyeygooda lagu magacaabo Cristiano Ronaldo nimankan lagu magacaabo Ronaldo weligood kuma aysan guuleysan uu leeyahay koob weyn marka laga reebo koobka Euro ay leeyahay 16 ay qaadeen nimankan wata Vitinha Bruno Fernandes Cristiano Ronaldo Diego Costa Ruben Dias kooxooyinkooda muhiimka ka ah waa in ognahay Bernardo Silva wuxuu maasati ka sameynayo Paris Saint-Germain 3 nin ay ku tirsatay inay tahay Vitinha Joao Neves iyo sidoo kale Nuno Mendes Bruno Fernandes waa ognahay in Manchester United uu dhabarkiisa ku wado ayaa la leeyahay nimankan weligood kuma aysan ku guuleysan koob weyn waana koobka weyn ee kaliya ay ku guuleysteen wuxuu ahaa 2016 Euro ay qaadeen 2 sano kaliya ay meel fiican ka gaareen waana sanadkii 1966 ay ka galeen kaalinta saddexaad waana sanadkoodii uu fiicnaa markaas kadibna 2006 ay noqdeen kaalinta afraad ee ka galeen xulka ugu fiican ama semifinalka ay soo gaareen inta markaas kadibna xulkan lagu magacaabo Portugal ma aysan sameyn 2022 wareegga 8-maadka ay ku dhameysteen marka sanadkan Ronaldo waxaa laga rabaa inuu xulkiisa meel fiican u gaarsiiyo maadaama uu rabo inuu ku guuleysto koobka adduunka una noqon karo koobkiisii adduun ee ugu dambeysay uu ciyaaro sidoo kale dhanka iyo sidoo kale Congo waxay ka soo qayb galayaan 52 sano kadib koobkoodii adduun ee ugu horeeya marka caawa wax walba ayaa la fili karaa sidoo kale groupkan waxaa loo arkaa inay ka soo bixi karto Portugal sababtoo ah Colombia bis ay ugu adag Uzbekistan Colombia iyo Congo iyo Portugal ay isku jira waxaa loo badinayaa inay soo bixi karaan Colombia iyo sidoo kale Portugal sida ay u badan tahay inkastoo oo kubadda cagta ay wax walba suurtagal yihiin wayna ognahay in Spain loo saadaalinayo inay xulkan Cabo Verde ka soo bixi karto Spain la celiyo oo bareed lagu qabtay ewer ay waxba dheeli waayeen oo gool haya Cabo Verde la ciyaaray wax walba suurtagal waay laakiin sida ugu badan tahay Portugal maadaama ciyaartoy professional ay haysato iyo sidoo kale Colombia oo u joogo miisigooda ugu weyn ee lagu magacaabo Luis Diaz waana laga yaabaa inay Portugal iyo Colombia ay soo baxaan
nimanka lagu magacaabo Congo sanadihii ugu dambeeyay waxay sameeyeen waxyaabo aad u fiican iyagoo soo gaaray wareegga 16 koobka qaaradda qaramada Afrika 2025 sidoo kale waxay u soo baxeen markoodii ugu horeysay koobka adduunka muddo 52 sano kadib waxayna ka soo baxeen isla reebka kulamadii saaxiibtinimo kuwa kamid ah way badiyeen kuwa kamid ah waa laga badiyay sidoo kale nimanka lagu magacaabo Congo waxaa hogaaminaya Wese oo u ciyaara Brentford iyo sidoo kale Aaron Wan-Bissaka ayaa hogaaminaya dhanka sidoo kale Portugal Cristiano Ronaldo iyo Bruno Fernandes ayana hogaamin doona oo horkaci doona xulka lagu magacaabo Portugal sidoo kale caawa waxaa ciyaari doona Ingiriis Fanay iyo waxaa wada ciyaari doona iyo Croatia Ingiriis sanadkan wuxuu rabaa inuu ku guuleysto koobka adduunka mid walba la wareesto wuxuu ku leeyahay sanadkan xaq ay u leeyahay inuu ku guuleysto koobka adduunka ya maalrat waxa uu jeeday Bellingham oo la wareesanay wuxuu yiri xaq baa u leeyahay arago 2 euro u dambeysay rigor ayana la qaaday ayuu yiri sanadkan wax kalma baraatikeena ayuu yiri rigordaas kaliya sidaan ugu soo bixi lahayn Thomas Tuchel rigor cajiib ayuu wataa 8 kulan ee u dambeysay isla reebka uu ciyaaray ma aan laga badal sidoo kale wax gool ma laga dhalin marka Ingiriis Fanay wuxuu rabaa inuu ku guuleysto mar kale koobka adduunka koobkiisii adduun ugu horeysay wuxuu ku guuleystay sanadkii 1966 markaas oo xitaa koobkiisii laga xaday mar kale sanadkan ayuu rabaa inuu ku guuleystaan nimanka lagu magacaabo England dhanka iyo sidoo kale suuqa kala iibsiga hardaan eegno ninka lagu magacaabo Yan Eman waxa ugu cadcad kooxda kubadda cagta Liverpool sida ay wararku sheegayaan ama sida uu sheegayo wariyaha caanka ciyaaraha ee Fabrizio Romano oo laga soo xigtay dhanka ABC waxa lagu guuleystay dhaqaalaha Liverpool ayana u badan ay leeyahay inay qaadato Yan Eman waxay rabaan inay bedel ka dhigtaan xidigooda Mohamed Salah oo dhamaan baxay asxaabi ciyaarihiina wanaag intaan subscribe noo saara